إنه إيش قيا رجينا وقلنا لايف عنها يا حليمة. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لها إن وايد وذا السلامة أحسابتي إذا قالي جاء ميلا جوكتان إيوا جوكتان برمضان مبارك كل جندن ولا ليال إنك استحل أفر الوجر أو أفرك ودوية هاي إن شاء الله بين الكريم وأنا جواي تقانن وحليم الديرية ومسكينة دي وحكلته نك كلته إيقافية ولا شيء حليم الجامع إن شاء الله أيضا إذا الله رمضان مبارك كل جينا سوى ذا دواذا أحبابي إن كستو حل وياي حل عفرة أو عفر لسومية حدنا حل الجبابسية وحنا سوق لي أرنتي كفر سويني إن أن كهذا arrintaas oo ah inkasta oo maxay walaal kalena gadaal ayaan ka sugaynaa insha Allah bin الكريم way noo imaan doontaa walaashay Luul Barre ayaa iyadana noo imaan doonta walaalayaal sida aad galabta ka aragteen ba Facebook-gayga waxa aan soo geliyay walaal in muddo aaba xanuunsanaay walaalkaas oo muddo aad u dheer 41 sano dhul yaalay oo xanuunsanaay xagga dhimirka iyo meel walba walaalkaas ayaan galabtayto aniga iyo walaalaha kaleeto muxsanaadka ila socda aan u soo galnay live-ka magaciisuna uu yahay Ibrahim Maxamed Barre oo dhowr iyo maxay tahay 40 sano xanuunsanaay marka insha Allah bin الكريم waxaan ku soo dhaweynayaa walaashay Xaliimo Jaamac oo iyaduna programka igala qayb qaadan doonta Xaliimo soo dhawo walaashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Xaliimo from Sweden iyo anigoo ah maxay tahay UK walaashay oo maxay tahay iyaduna UK joogta oo gadaal nagala soo biiri doonta Luul Barre marka Xaliimo Jaamac walaashay soo dhawo waa dhawaha walaashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad aan kuu salaamaya walaashay Xaliimo sida qiimaha iyo qaayaha la oo aad arrintan maaragtay galabtay aad noogu dhiirigelisay inaan u istaagno ninkan waa nin aad iyo aad u xanuunsan walaalkay runtii aad iyo aad arrin uga xumaanay oo aan arrimaha bulshada ka helnay ahayd waana runtii wax maaragtay laga tiiraanyo in waddankayga gudihiisii weliba caasimadda gudaheedii qof noocaana laga helay oo aan maaragtay in muddo cidina arkin marka arrintaasaan waxaan friendskayga iyo maaragtay kaagaba iyo ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto qof kasta oo maaragtay naxaya oo islaamnimo ku jirto in uu u gurmado wiilkan bukaanka ah sidii loo daweyn lahaa sidii meel loo dejin lahaa iyo sidii maaragtay noloshiisii maaragtay loogu quusan lahaa inay wax noqoto insha Allah waxaan rabnaa arrintaas inay dadweynaha Soomaaliyeed nala qaataan dadka muslimiinta oo namaqlaaya galabta Xaliimo Jaamac waa maadsantahay jazaakum Allah khayr walaashay walaalahayga qaaliga ah walaashay Xaliimo Jaamac waa maqlaysiin waxa ayadana sida hore idin sheegnay nagu soo biiri doona walaashay maxay tahay Luul Barre oo maxay tahay from London ah marka Luul Barre wixii na soo galiyay galabtayto ama aan ka hadlayno runtii aan ka wada maqarnay in uu yahay walaalkeena maxay tahay Ibrahim Maxamed Barre oo muddo aad iyo aad maxay tahay 41 sano ah geed ku xirnaay waalnaay yani qof walbaba wuxuu u baahan yahay isaga ma ahan in ilaahay necab yahay oo maxay tahay geedkaas inuu ku xirnaado loo qoray mana ahan annaga inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala na jecel yahay uu caafimaadka iyo lixaadka na siiyey Soomaalidu waxay tidhaahdaa nin hanti hayowna hantiha isku siin waa hooska labadiisa gelina nin lixaad hayowna in hanti kaa maqanta ha u malaynin waa hooda ee la ku siiyey lixaadkaaga haddaad mar mididkaaga qabto waa hooda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey waa wax alla subxaanahu wa tacaala loogu xamdiyo walaalayaal annagu ma ahan mid aan mushaar ku qaadanayno ma ahan in aan maxay ahayd guriga ku dhisanayno waa ilaahay dartiisa waa bil Ramadaan waxa loogu jiraa 10kii dambeeto telefoonka aan ku soo qoray page-kayga ayaa maxay ahayd lagala xiriiraya ruuxa lagala xiriirayana wuxuu noqon doonaa insha Allah meesha uu yahay iyo sida uu yahay waxaan siinayaa walaashay Luul Barre salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhawo walaashay Luul السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمة الصومالية ملك استاد جوتينبو وإن سلام يا وحنيكو سلام يا رمضان مبارك الحمد لله شكري سيدا ولا شيء حليمة شيرتي
xaliimo diiriye iyo xaliimo jaamacba oo tiimka nala wado ilaahay ajar iyo xasanaad badan ha siiye walaalkeen ibraahim maxamed barre aad buu u dhibaataysan yahay sidaad ku aragteen qof kasta oo soomaaliya oo damiirla inuu ka danqado weeye ilaahay subxaanahu qaadire wuxuuna na tusay inaan kuwa dhibaataysan oo dhibka haysto aan la qaybsano oon la kurboono because adduunyada waxay tahay ma laha qof walba oo akoon ilaahay ka fura agtiisa marka walaalayaal waxaan rabnaa inaan maaragtay walaalkeena dhibaataysan aan dhibka ka saarno ilaahay caafimaad khayr qaba siiyo dhibka uu maaragtay ibraahim qabana aad baan uga danqanay waa maxay ahayd qof waa damiirkana mana siinaya inaan indheheena hoos u dhigno marka walaalayaal aad baad u mahadsantiin meel kastaad joogtiinba ilaahay ajar iyo xasanaad ha idin siiyo tobankii dambaa lagu jiraa ilaahayna waxaa idinkaga baryayaa adduun iyo aakhiraba inaad u gargaartiin allana idinka abaal mariyo جزاك الله مقالة ولا شيء لول محيهتي ولا شيء حليمة جامع ولا ليال وأوجدان ولا لها محسنات كأه ومحيهتي ولا كان كدم قضي وحوي ولا وحال لقى حريري كلا ولا الكأن محيهتي حنوصن ومقالة مقدشة أيو جوجا وحنا لقى حريري كلا تلفون كأه بيت كي قام كسر قرئ أو لابو شن لابو لح hal shan sideed lix afar toddoba sagaal waa telefoonkana waxaa haya sheekh nuur islaam annagu wax aan hadda inta ku qaadayna ma jirto wax aan annagu halkan ku ururinayna ma jirto wixii islaam yacni ilaahay dartiisa dad islaam ay noo keenaan ama noo dhiibaana waxay tahay sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu annaga nagu ogyahay saddex qofood oo qofba meel jooga ina aniga ay bayluul ayaa dad maxay tahay walaalo ah oo muddo dheer is yaqaanay ah walaashay xaliimo jaamac sidoo kaleeto walaal iyadana aan wanaag iyo sharaf ku bartay waaye ilaahay subxaanahu watacaala dartiisa isku barannay laba wadan oo kala duwan ayaan joognaa marka walaalayaal oo qof allaale iyo qofkii dhibaatay dad badan oo dhibaataysan ayaa jira ilaa shalay waxaan la ooynayay oo ilmada naga wada keentay oo gabdhahan walaalaha iyagana wada fiirsadeen waa gabadhii Soomaaliyeed ee iyadu imaatay TV-ga ee wallahi baan ku dhartay ilmada shalay iga qubtay ilaahay subxaanahu watacaala qof walba markaan gabadhii daawaday ka bacdi ayaan haddana wadaadkaan arkay يعني waxay igu noqotay naxdin anoo gabadhii qardha ka hadlayay ilaa shal la ooynayay ayaan haddana wadaadkan shal galabtii arkay waxaan arkay oo kaleeto igu sii xigtay laba caruur oo yar oo kaleeto oo maxay ahaatay yaala magaalada Gurceel yaala ayaan ayagana arkay runtii waxay noqotay يعني wax arrimuhu siday u kala sareeyaan in loo kala qaaqaado insha Allah iyagu dhamaan aan wada keeni doono dadkana laga wada hadli doono walaalayaal xilliyadii afurka ayaa soo dhow afur sameys ayaa lagu wada jiraa reer UK reer Soomaaliya waa la afuray reer Mareykan waxa idintiin maalin cad idinta iyo reer Canada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof walba oo Allah wuxuu dhiibay ka soo qaad walaalka iyo hooyo walaalka iyo abtiga iyo aabaha oo maxay ahaatay baalkii isha geed ku xiran 41 sano ee aan haysanin wax allaale iyo wuu iska nool yahay nafta maanta waa ninkaas toolmoonka ah oo inta dhirka la eg hadii loo qabeeyo ee maanta shaati loo geliyo ee maanta meesha uu jiifa laga kiciyo ee maanta loo gurmado ee maanta loo istaago qof alla qofkii ilaahay wax siiyo waxa uu maanta naga rabaa kaliya waa hiil waa walaalnimo waa wixii ilaahay subxaanahu wa ta'ala anaga nasiiyay in aan wax ka siino ninka walaalayaal waa nin Soomaaliyeed waa nin muslina maanta ito anigu halkaas aan shala ka arkay ilaahay dartiis ayaan ugu hadlaynaa annaguna wax aan maanta qaadanayna ma jirto qof walba oo telefoonka halkaas ku qoran qofkii aad awoodo iyo ninka ku jira page-keena aan galiyay page-ka waxa ka page-keena dhan ku jira luulay waxay leedahay page saaxiibo ayay leedahay page-keedu ku jira walaashay xaliimo jaamac waxay leedahay page-keeda iyo Facebook-geedu ku jira ilaahay dartiisa ku caawi oo ugu gurmo Ibraahim Maxamed Barre 41 sano ayuu meel ku xiran yahay silsilad ayaa ku xiran waxaan xasuusanaa ninkii asaga la mid ahay ee uu keenay walaalkeen maxay ahaatay wariyaheena maxay ahaatay Coldoon oo lugta ka go'day sidii loogu gurmaday meeshii Coldoon uu ka qaaday ninkaas ayaa maantana kan taagan yahay walaalayaal ha laga qaado oo ilaahay dartiis miskiinkaas
ha loogu gurmado oo maxay ahaydtay ha loo magaciiseebo dadka haayana waxaan ka codsanaynaa ninkan inay u qabeeyaan oo dadka muqdisho jooga cid inaysan u fiirin yuu yahay iyo waa reer hebel ee ilaahay dartiisa loogu gurmado oo maxay ahaydtay wax loo siiyo xaliimo jaamac walaashay waa kugu soo celiya adigana aad iyo aad u mahadsan tahay xaliimo ilaahay naxariistaada badan ha kuugu naxariisto insha allah intii naxariisatana ilaahay ha u naxariisto sidoo kale luul walaashay sidaa ugu soo istaagtay oo caawa aad u goosatay inaad arrintan ka qayb gasho ajar iyo xasanaad allah kaa siiyo walaashay marka maxaa la yidhaahdaa maxamed barre ilaahay dadka kama nibca laakiin qadar ilaahay u qadar inuu intaasoo sano ku xirnaado ibraahim barre inuu intaas xirnaado محمد برا إنه أنت سجيت كحرنا إلهي بقى قدري لكن وحواي دتك كمهما قفول بنا وحواي وحوليه رود ومرا مركو دشو إلا مركو كدمنا أيو إلهي وحن كرجينا يا إنه محمد برا إهل هلو أو ولا لي إسلام هلو أو نلشوا ما أنت كجرو مك بدلن هلو سببنا أن نقولنا دتك معرفة بدن أو أجر من دونا أو برها بنشدة كأركي إنه معرفة جرمدان محمد ودكتور هلو وجر في عنه هلو ونرول في عنه هلو ومستقبل كيس أنت هرتي إنه نين دتك واحترم نقضه أنا هرت إلهي كبرية سببت أواد أرتي نينكي وعلدون هذا كهر أسقول لو أتنسنا برعكو حرن وكفر جيتك نينكاس قرية الله نسي مركور والله إيجاري دتكي محيه هذا وحي أسميه دكتور جارة إلا أمرك دم قري وليه ددوينها صوماليات ودسان دتك صومالي وادد إلهي ونحريس كبيري وادد آد مارتي دد وحصة دقيستا وجيران وادد مركه هره aan wax arkin laakiin waxa markay arkaan dhibaatada aad iyo aad isku wadnada marka ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba inay isku naxariistaan marka ninka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa Ibrahim Maxamed Muuse ilaahay ha u soo dejiyo nuuro iyo maartay mid arinta oo hadda ku nool yahay ka bedelan sidoo kale gabadha maanta qardho aan ku arkaynay iyo Maxamed ninka la yiraahdo Ibrahim Muusaba Maxamed Muusaba xalay saas oo kale walaashay nadiifo qaran iyo ayaan saan oo kale anigu u gudbiyo maadaama aad ku jirto arrimaha bulshada dadkan waa inaad gurmadkaaga caawiyo codkaaga wax ka siisaa saas oo kale ayaduna u soo bandhigtay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka gubanaya arrimaha noocaan ah wiilka waa labada ilmood waa aragnay oo suuxsan oo maarta suuxdumaha qaba gabadhaas waan aragnay ooyeysa oo maarta noloshii ka xumaatay dadka Soomaaliyeed marka waxaan ka codsanaynaa qof kasto dhiman macnaha dhiban inay maaragtay u dhimiriyaan oo ay dar ilaahay ugu gurmadaan oo maaragtay qofku hadduusan xoolo bixinaynin codkiisa inuu u gado maanta ilaahay dartiisan u soo istaagnay daqna waligeen Facebook anoo soo gelin waxaan u soo gelaynaa caaway waxa waaye inaan arrintaas ka hadalno dadka dariska dadka maaragtay magaalada la degan dadka xildhibaanada dawladda ku jira oo arrintan arkaayo ganacsatada arki doonto arrimahan oo kale ayaga ayay waxay u tahay maanta dadka muqdisho jooga ceeb in dad noocaana ay ku dhex nool yihiin waxaan aad iyo aad uga codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed ama maaragtay ganacsatada Soomaaliyeed ama xaafadaha dadka ku nool organization ay sameeyaan dadka noocaana inay register-gareeyaan way tira badan yihiin kuwa indhoolaha jira kuwa cuuriyaanaha jira kuwa maaragtay waxa jira ii sheeg dhagala jiro dadaan maaragtay mayeeraan ah ayaa badan marka waxaan leeyahay dadka xukuumadiisa ha la iska ilaaliyo oo ha la isku naxariisto oo ninka la yiraahdo Ibrahim Maxamed Muuse ayaan maanta u soo istaagnay Ibrahim Maxamed Barre ayaan Maxamed Barre ha Ibrahim Maxamed Barre aan u soo istaagnay dar ilaahay walaalayaalow dadkana yaqaan dadkana arki doona waxaan ka codsanaynaa ilaahay dartiis waa maalmihii ugu dambeeyay soonka ilaahay dartiis qof walba inuu u istaago qofkii 10 ku riday kii 20 ku riday kii 100 ku riday kii 1000 ku riday qof walba jeefkiisa asaga og qasab ma jiro kala xiriira telefoonka meeshaan ku qoran oo ay horay walaashay Xaliimo idinku sheegtay telefoonkaas oo furihiisa uu yahay 55 86 waxaa lagala xiriirayaa Sheekh Nuur إسلام أو كنا المجال المقدسة إن شاء الله وحن لا يهي ددوينها الصومالية حسكون حريستان أدين كان قبضيه إلى هذين حريستو أدين في أهل كنبا وسودوا حليم آمين يا الله ولا محيته ولا شيء حليم جامعة عادي يا أمها سنتها هاي
waxaan rabaa wax yar walaalaha intii aragtay way aragtay intaan weli arkinin يعني waxaan ka hadlayno walaalayaal wakaasa Ibrahim Balirada Ibrahim Maxamed Baral suuga si fiican ayaa ugu qabanaya xiran yahay 41 sano da'diisu waa 57 sano uu jiraa waxa ahaay walaalihiis oo jiran iyo walaalihiis la jooga iyo hooyadii oo jiran oo weyn walaalkiis oo ka weyn oo wiil ah inta kale waa gabdho oo xanaanay jira oo ka geeriyooday codku ku darabay waa ku dar Facebook ku jira dad badan ay arkeen insha Allah xaliima dad badan fiirsanayo wala share gareey waa ka walaalayaal waa tanaha sariir saaran saaran walaashii oo jira oo ma taashay waa tanaha walaashii mutaantahay oo xanuunsan kana waa iska xanuunsan waa ka walaalayaal meesha jirka ilaahay baan ku dhaartay qofka marka luulay waxaan rabaa baayo inaan dadka waalan haddaan nahay Soomaali silsilada lagu xiraa dadka luulay ma uga dartaa mase waa uga raysaa bal arrinta silsilada ka hadal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدان حليموي ماركتي iyo umada Soomaaliyeed ee aan ka jawaabo su'aashaas kulay ayaga daruufa u keento haday dawo qofkii haystaan oo maaragtay wixii uu maaragtay u baahnaa medicalka annaga waxaan joognaa wadamo Yurub qof kasta iyo wadan qof walba wuxuu u baahan yahay dawadii inuu qofkii helo wuxuu u baahan yahay daryeel hadii aan dib u fiiriyo qofkiisa dulinaayo ama qofkiisa dhibaataynayo ma jiro daruuf ayaa meesha dhigtay ayagan hooyadiis way xanuunsan tahay indhiina ayaa ku arkaysid walaashiis way jiran tahay waad aragteen ayadana awoodda ilaahay baa bixiyo laakiin xanuun baayo laakiin daruufta ayaga laftigooda ayaa daruufaysan oo u baahan in wax loo qabto ayaga laftigooda amaanta waxay ka aqranayaan ma jiro laakiin maanta tabar iyo daruuf baa meel dhigtay adduunkana waad fahmi karaysid qofka oo maaragtay kuwa Soomaaliland joogo kuwa Soomaaliya joogo kuwa qof meel kasta joogo daruufaas silsilada keentay laakiin daruufta keentay ina umada Soomaaliyeed ay u istaagno oo gacmaha u qabsano oo isbitaalka Xabeeb iyo isbitaalada maxay ahayd Soomaaliland ka furan isbitaalada buuhoodla ka furan iyo meel kasta oo mentalka aan u aruurino inaan maxay ahayd u istaagno oo mar gaar ah aan ka hadalno ayaa loo baahan yahay sida dhibaatada lagu xalin karo waa taa because qof kasta oo Soomaaliyeed haddii aan dawo loo hayn dhibaatada way ka sii daraysaa waxaan baaq u dirayaa dawladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha Soomaaliya especially Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayra iyo baarlamaankaba inay dhibaatooyinka bulshada oo aad u dayacan ay wax ka qabtaan iyaga ayaa maxay ahayd shalay u dhaartay wadankan ayaga ayaa maxay ahayd madaxdeennii ayaga ayaa aad sharaf marka waxaa loo baahan yahay inay hoos gacmahooda u dhaqaan ay dadka dhibaataysan arkaan ay fiiriyaan ayna maxay ahayd codkayga iyo codka walaalahayba ay darajeeyaan ilaahay ha darajeeyo ilaahay sharaf u yeelo waa madaxdeennii waa maxay ahayd sharaf madaxweynaheennii waa ra'iisul wasaaraheennii waan adiyaadsanahay waan taageersanahay weligeena waan taageeraynaa dawladda maanta noo joogto waxaan ka codsanaynaa nabad iyo nolol inay khayrka weligoodba khayrkan ku naqaanay khayrka nala kaashadaan oo sida aan rabna ay garabna siiyaan oo maaragtay qof kasta oo dhibaataysan hadday gabadhaas tahay hadday Ibrahim Maxamed Barre tahay ay maaragtay khayr Allah siiya ay kaalin libaax leh ay ka qaataan waxa waaye maxay ahaydtay kulay luulay waxa u maleynayaa dawladda codsi baad u dirtay marka insha Allah maxay ahaydtay kulayba hadaa dawladda taageersan tahay waxaan jeclahay inay ku maqlaan oo ay codkaaga maqlaan marka laakiin gargaar taageero gaar ah maahan dawladda kasta oo timaado ilaa dawladihii kale ilaa kuwa hadda jooga waa taageersanahay because dawlad walba sharafteedan ku taageersanahay iyo qiimaha ay timaado ilaa Soomaaliya wixii wax ka soo qabto dhan halkaas ay saaran calaa raas
ما فهمت قف أما قاس عادي هذا وحنا نودرن أبوه نودرن qof gaar ma ay caadsani qof shakhsiyana ma ataagayo mana rabo laakiin waxaan sheegayaa baahida maanta jirto ayaga maanta makaanka noo saaran oo madax noo ah inay na arkaan oo maxay ahayd dadkaas dhibaataysan oo ka hadalna ay wax u taraan maya taas waxa waaye haddii ay wax tarayaan malaayiin dada oo shacaba oo Soomaaliyeed ayaa baaba'san oo maxay tahay dalka gudihiisa ku baaba'san hooyooyinkii ayaan xasuusanaa jidadka inay ku dhaleen dhibaatooyin badan inay dalka ka dhacday marka taan horta waxa waaye qofku codsi uu dirsan karaa oo qofku yani dawladda codsi uu u dirsan karaa ana hubna maadaama aad hadeertaan tahay qof yani taageerada u ah una maxay tahay dawladana sida saxda ah maxay tahay sida qofku qof uu dareensan yahay uga hadlay inay codsigaaga maqlaan insha Allah biinil kareem waa rajaynaya waxaan rajaynayaa oo kaleeto oo ay tahay oo aan leeyahay in allaale inta ilaahay wax siiyey inta maxay ahayd muslimiinta inta muxsinaadka inay u gargaaraan dadka islaamka ah waxaan kaleeto codsiga anigu hadda aan halkan ka dirsanaya qof kasta oo Soomaaliya waxa loo dhiibo oo ilaahay dartiisa loogu dhiibo oo dadka qofka miskiinka loo dheersiyo oo dadka waxa caawiya inta ugu badan waa dadka qurbaha jooga oo dibadda jooga dadka qurbaha jooga wax allaala waxa ay keenaan qofka loo dhiibo ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiisa ha u gaarsiyo hana ugu dhiibo isbitaal ha ku geeyo ha ku daaweeyo qofkii waxa la maxay aamin markaad noqoto oo maxay ahayd dadka dibadda jooga lacagta darbiyada kama soo fufujiyaan qof walbaaba wuxuu ka soo gooyaa naftiisa wuxuu ka ama mushaarkiisa hadduu shaqaysana mushaarkiisa uu ka gooyaa hadduusan shaqaysana waa hooyo ilmaheeda ka soo goysay waxaasi marka waxay ku tabarucaan qofka miskiinka ah oo ay ka naxeen oo ay halkaa ka arkeen qofkii miskiinka ahay wixii ay dadka dibadda jooga ku tabarucaan haddii sida ay tahay aan loo siinin hadduu xabad kaniiniyo u gooyay oo $50 lacagtu ay ahayd $50 haddii qofkaasu daawo ugu jirtay xabadda kaniinigana $50 ay jirtay oo qofkii miskiinka ahay $25 la siiyo 25kii kaleeto ay meesha ka baxdo way dhacday waxaan aniga hadda yani kan ula jeedna waa dhibaatooyin badan oo dhacay waa wax saxiix ah midaan hadda ururinay ayay ka dhacday oo miskiin baraha bulshada ya maalin walba dhacdaa waqtigeeda baraha bulshada miskiin la soo dhigay oo ilmo lahay oo loo gurmaday oo Soomaali loo gurmaday ayay ku dhacday inuu hadli waayay inuu soo rabo maxay ahayd wax u sheegi waayay inuu maxay ahayd yani dadkiina ma aan rabno toosh inaan ku shidno oo toosh haddaan ku shidno ayagii ayaa laga yaabaa dhibaatooyin badan inay gaarto dadka dibadda jooga lacagta bangiyada kama soo xadaan kamana soo qaadaan inteenaan hadda luuliya anigoo joogna Bank of England kama shaqeyno hooyooyin xoogoodii cidooda maagaalanaan ayadoo kale kama shaqeyso Bank of Sweden kama shaqeyso waxa weeye dadka masaakiinta ah wixii ay u gurmadaan walaalayaal qof walbaaba sida ay tahay oo daacadda ah ha loo gaarsiiyo insha Allah biinil kareem marka arinta silsilada waxaan uga hadlaayay waxay ahayd Soomaaliya qofka silsiladu way dhaawacdaa dhibaato ayay u keentaa ayana duruufa u geysaa baayo marka silsiladii qofka waxay u yeeshaa lugta wiilka maxay tahay wadaadkii coldoon keenay lugta waxaa ka gooyay waa silsilada gacanta inta aysan ka go'inin miskiinkan 41 sano meesha ku xirnaa dhibaatada walba mara xarig ah haddii oo xataa la tidcay ha noqotee ha loogu bedelo oo silsilada ha laga furo oo ha laga daayo qofku markuu silsilada isku arko wuu sii waashaa wuu sii naxaa sababta loo xiray iyo waxa loo xiray garan way xoog meesha inuu ka baxay waan dareenay hooyadii oo maanta 80 jira inay sarrita saarantaa u jeedna mataanti u jeedna waa calool xumo iyo maxay ahayd inteeda la eg waxaan aragnaa oo kaleeto oo meesha aan ka aragnaa يعني maxay wiilkii u qabeyn jiray in ilaahay oofsaday oo asaga ka hormaray annaguna meel taayadu gaaraysa ilaahay baa og marka walaalayaalow ilaahay dartiisa Ibrahim Maxamed Barre ha loo gurmado Ibrahim Maxamed Barre wuxuu rabaa gurmad waa toolmoona halkaas jiifa waa nin Soomaaliyeed berri hadii la daaweeyo oo uu daaweeyo
oo ilaahay subxaanahu watacaala daawo loogu soo diro cisbitaal la geeyo waxaa laga yaabaa hal xaba kaniiniyo inuu intaas 41 sano u jiranay dawadana meeshay ku jirta ilaahay baa og allahu aclam lulna ma hayso walaashii xalimo jaamac ma hayso daawanaysaa maxay heetay ma hayaan allah subxaanahu watacaala ayaa hayo laakiin wuxuu nooga baahan yahay walaalayaalo gurmad ayuu nooga baahan yahay aan walaalkan u gurmadno hadduu ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka noqdo barnaamijkana waa sii wadi doonaa dadka dhibaataysan iyo dhibaatooyinka badan hadduu maxay heetay hadduu ilaahay yiraahdo qof allaala qofkii ama maxay tahay dhib haysto ama magaciisa haysto toos ayuu maxay heetay ila soo xiriiri karaa walaalaheenna waxay haystaan luul waa la wada yaqaanaa iyadana waa sidoo kaleeto insha allah billahi alkariim sida naloo soo gaarsiiyey walaalkeen ayaan annaguna bulshada usii gaarsiinay xalimo jaamac xilliyadii afurada ayaa la joogaa marka xalimo jaamaca baay macaanto maxaa leedahay adiguna wixii aan dhihi lahaa waa tiraahdeen ninka la yiraahdo Ibraahim Maxamed Barre ilaahay waxaan uga baryaynaa sida hadda uu yahay si dhaanta inuu ilaahay maaragtay u garto ummadda islaamkana inuu ilaahay u adeejiyaan ilaahay ka baryaynaa midda kale oo aan rabo inaan intaas ku daro waxay tahay dadkayga Soomaaliyeed qofku markuu waasho ayaga sii waala waxaa laga yaabaa qofku marka hore oo ay sheekadu bilowga ku tahayba oo ay arkaan in qofku wax ka bedelmay inaysan isdhihin qofkan maaragtay siduu ahaan jiray maahane hadalka ha loo yareeyo iyo dhakhtar ha la geeyo iyo warseen yeelnaa hebel saanu ka bedelan yahay iyo malaha qoyska iyo dariskuba waxay ku fiirsadaan qofkaas jiraday ku fiirsadaan war waa waashi iyo waa soo waashi iyo qof xawaalanaata naga fariisay war naga xira war ma xirtiin war ma yeeshiin erayo xun oo waxay sameeyaan dadka maskaxda ka sii baabiya marka dadka Soomaalida waxaan ku waaninayaa inay bartaan qofku markii wax ka bedelmaan inay u dhimriyaan inay meel degan geeyaan in meelan ciyaalka iyo maaragtay dumarka iyo dadka maaragtay ay maaragtay hadallada uga tuurtuurayaan meel ka duwan la geeyo oo isbitaal la geeyo qofka darisku waaga anaga yaryareen haddii qof naga jirado waa loo imaan jiray xaafadda waxaa la dhihi jiray ma hooyaa idinka jiran ma aabaa idinka jiran ma wiilaa idin jiran waa ma qofka jiran nacam dariska wax u qaban jiray laakiin maanta waxaan la yaabanahay dariskii maxaa ku dhacay walaalihii maxaa ku dhacay dadkii dhaliyada ahaa oo maaragtay dadkaas wiilkaas xigay maxaa ku dhacay ma markay ugu yaraadaanay waxay waayeen haddii xataa walaalihii xoog beeleen oo walaalkii u qubaynaya uu dhintay oo walaashii mataanteeda ay jiran tahay oo hooyo ay waayeel tahay ma dariskii iyo ehelkii kala waxaa laga waayay dad inta ninkan kaxeeya maxay meesha geeya caafimaadka xabad kaniiniyu ninkaas meesha ugu xiran yahay taasna cadaanteeda waxay daliisheeda ah ninka asagoo kala ay geedka laga furay oo 20 sano ku xirnaa xabadii kaniiniga ahayd ku daawo waxaan cuduran daawo lahayn ma jiro ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka kiciyo ilaahay islaan inuu malaa'igaha inuu ilaahay u adeejiyo ajir iyo xasanaadna inuu siiyo inta caawisa adinkana codkiinaad ku caawiseen insha Allah ilaahay haydin caawiyo waa soonkii waqtigii ugu dambeeyay waa bishii cadaabta la iska xoreynayay walaalaheena friendska iyo dadka Soomaaliyeed oo islaamka ah waxaan ka codsanaynaa arrintaasi wax degdeg ah in laga qabto oo maaragtay dadku ay isku naxariistaan oo gabadha maaragtay ooyeysa sidoo kale maxay heeday oo reer qardhood gabadhaasna sidoo kale in loo naxo in maxay heeday ilmaha maaragtay suuxdimaha qaba oo bulshada la keenay war inta aan u jeedno aan u dadaalno inta aan u jeedin uma jeedno aan dhihi lahaa inta aan u jeedno oon aragnay ha loo gurmado Soomaaliyeed maaragtay iskuna gurmada iskuna naxariista isna cafiya marka waa idin salaami waa idin ku soo celiyay walaal macaan waa maadsantaa xaliimo jaamac halkan waxaan ka salaamayaa walaashay nadiifo qaran sharaf eelu sharaf waa ku salaamay halkaan ayay idinka salaamaysaa nadiifo qaran way salaan idiin soo diraysaa marka insha Allah aamina maxamuud adigana aad iyo aad aan ku salaamay kulligiina oo dhanba waa idin wada salaamay samsam gorod kulligiina waa idin wada salaamay marka waxaan idin dhahay waa sidaas nadiifana xala kaalinteedii way qaadatay ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo nadiifo ya nadiifo xala way u gurmatay caawana way u gurman doontaa gabadha insha Allah gabadha gurmad rabta midda kale waxaan arkaya xalayto codad la soo dhigay oo lagu ridinayo gabadha maxay ahayd marka codadka gabadha lagu ridinayo waxa weeye 100 qof ayaa lacag loo aruuriyay 100 qof oo lacag loo aruuriyo
way dhacday waa aragnay dadku telefoonka markii qof u qabto ama maxay ahayd magaciisa lacagta loo diro ma naqaana inta badan dadka waxa ku dhaca waxaa dhacda ama telefoonka way xiraan ama maxay ahayd waxyaaba aana doonaynin inaan hadda halkan ka iraahdo oo kaleeto oo barnaamijka aan ku jirinin yacni maxay ahayd oo si daaragtiya dad Soomaaliya jooga iigu sheegay ayaa jiro arrimahaasuna waa arrimo xaasxaasi ah oo run ahaantii mar idilkeeda in laga wada hadlo u baahan oo dadka ku kalifa inay telefoonka xiraan inay maxay ahayd cabsadaan in maxay ahayd yacni maxay ahayd dadkii waxyaabo badan ayaa markii ay social media la soo dhigo la gudboonaada inta ugu badan dadka dibadda ay lacag u soo diraan dibadda dadka joogaho sidaa hadda iriyo kaleeto dad milyaneer ah oo bangiya ka wada shaqeeyo malaayiin lacag la ma ahan waa waxay naftooda wiilka shaqeeya gabadha shaqeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa og sida ay wax ku keenaan qof walba naftiisa ayuu ka soo gooyaa wuxuuna ugu tabarucaadaa walaalkiisa Soomaaliya jooga markaan hadda waxaa u dambeeyay oo kaleeto wadaadkii miskiinka ahaay oo maxay carruurta iyo xaaska lahaay oo social media la soo dhigay oo biijajkeena aan gelinay ayaa ka mid ahay inta telefoonka laga wacay 2 qof ama 3 qof ma ahan intii kalena dadkii oo dhan waa ay waayeen si markii loola hadlay ama loola wacay ama dad kaleeto telefoonkii ka jawaabayna arrinta meesha ku jirta way soo cadaatay wayna soo baxday marka waxaa laga yaabaa xataa gabadhaas oo kaleeto emotionally markay dadku la hadleen oo kaleeto luul adiga waxaad noqotay dadkii u yeeshay nasiibka sax haddaana qaldanayn gabadha dadkii nasiibka u yeeshay inuu la hadlo ayaa noqotay marka alxamdulilaahi waa aad og tahay markay meesha joogtay iyo markii aad gabadhii la hadashay yacni sida differentiga kuu dhexeeya iyo sida emotionkaaga isku kala bedelay gabadhii marka dadkii la hadlay dad badan aniga ka mid a dadkii waxay nasiib uma yeelanin abbaay gabadha way jirtaa xaliimo haddaan hadalkaaga dib u raaco xaliimo diiriyaada hadalka watee gabadhan walaala waaye gabadhii ugu horreysay oo Soomaaliyeed soo dhigidda ay soo dhigtay ayaan waxaan leeyahay gabar karti badan weeye gabar qalbi badan weeye gabar fiican weeye gabar sharaf la weeye oo damiirka iyo qalbigeeda siiyey inay walaalaheeda muxsimiinta ah u sheegato ma ahan in la jaayfeeyo ma ahan in la caayo ma ahan in la kreditka laga sheego ilaahay baa wax og laakiin gabadhan waa gabar dhibaatadeeda ka hadashay laakiin Soomaali haddaan nahay qofka xaqiisa ka hadlo ayaan waxaan idhahnaa waxyaabo aan loo baahnayn aan idhahnaa waa soomanahay mana rabo inaan waxyaabihii la yiri aan sii dib qaado gabadhani waa gabar jirto waa gabar dhibaataysan qof kasta anigu gabar baan dhalay gabar baan ahay gabar baa ila dhalatay waa dareemi karaysaa dhibaatada anigu waan soomanahay mawduuca inaan ka baxana ma rabo haddii aan gabadhaas arrimaheeda gadaal u sii qaado qalbigayga ilmeynayo qalbigayga xanuunka uu dareemayo ayaan idinla qaybsan lahaa laakiin waa la sooman yahay ilaahay waxaan ka baryayaa kuwa kufsiga iyo xaqdarrada gabdhaha ku wado oo gabadhaas dhibaatada ku wado ay maanta guurkeedii iyo nolosheedii 3 nin ay soo furtay cajalada qofkii dhagaysataa dhagaysto walaalayaal Soomaalida waxna ma aqrino waxna ma qorno laakiin waxbaan dhagahan la kugu sheegaa walaalayaal dib u fiirsada qofkii damiir leh oo ilaahay ka cabsanayo oo xaqa ku hadlayo oo ilaahay subxaanahu qaadir aaminsan ayaa gabadha ka dhaqnan karo dareemi karo ma fahantay inta ila soo xiriirtay oo ilaahay dartii ila soo xiriirtay oon u gudbiyana ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo way maqlayaan fareenadayda waxaan jeclahay in loo gurmado oo dhibaatada haysato loogu gurmado aabaheed oo xanuunsan ayaa Soomaaliland yaallo oo cidna u maqnaan ceelna u maqnaan ayadana waa kaligeed madi weeye ma fahantay cid maanta ay ku tiirsanto oo ilaahay weyna ahayn ma jirto iyo adinkaa Soomaalida ceelna uma maqno dawladna uma maqno cidna uma maqno dhibaatadana ragga ku sameeyay waa rag Soomaaliyeed oo nala dhashay oo na dhalay oo noo aan maxay ahayd aan u dhaxnay ma ahan inay maanta dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa ragga maalin kasta mawduuceeda inaan ka baxa ma rabo ragga maalin kasta gabdhaha kufsanayo in la dilo oo la daldalo oo kow laga siiyaan u baahanahay inay cadaaladda taasay isiinaysaa laakiin ma rabo inay ragga Soomaaliyeed
inta gabadhii la dila la yiraahdo waa lagu guurinayaa saan baa lagu yeelayaa maalin walba tilaabo sii qaadaya maalin walba ibku uu sii badinaya in rageen waxa loo baahan yahay rasuulka kaleey salaatu salaam wuxuu nafaray qofka sidaas oo kale u dhaqmo in munaasibkiisa la mariyo oo qabiil loo fiirin oo dawlad loo fiirin oo walaalka adduunka jirka la geeyo ibka soo yaraan lahaa maanta tan haddaan daboolno tan kale aan ugu furmaysa ay sameynayaan waxay noqonaysaa real model ay ku daysanayaan annaga masaakiin baan nahay dad dhibaataysanaan nahay xaliima sacdi waad ogtahay ani qaraxa igu dhacay qaraxa markii igu dhacay ilaahay dartiisa waxaan la galay inaan maanta wixii ka dambeeyo dadka walaalaha oo dhibaataysan iyo dadka dhibanayaasha aan u hadlo sidii aan ugu taaganahay ma fahantay maalin walba dad aan waxba galabsanaa maalin walba midida la marsiinaya war mooska muqdisho yaalo iyo qofka dhiiggiisa mooska aa u qiimo badan qofka Soomaaliya jooga war ilaahay ha laga boqo war ilaahay ha laga cabsado war ilaahay qabriga labada mitiraan la gelinaya mawduuc ayaana ka bixin iga raali ahaada xaraara ay qaaday waxaan u gafaynahay iska kay cafiyaan laakiin xaqiiqda jirto gabadhaas iyo waqti gaar ah iyo mawduuc gaar ah soo gali doona mana ahan abaayo macaana inaan hadalkaagii aanan qadarin waayay ama waan ku qiimeeyay waan ku qadariyay Allah ku karaameeyo sida sharafta leh oo qiimaha leh aad maxay ahayd Layla aad maaragtay ku soo bandhigtayna ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inaan kugu gurmano oo awoodda ilaahay baa leh sida ugu teleefankaaga aan sida gaarka aan u siino dadka ayaga ay kula soo xiriiraan annagana mar walba ma rabna gacanteena inay wax soo gashaan si allaale inta hadda gacanteyda wax soo gashay oo Ibrahim Maxamed Barre waxaan u dirayaa ninkii laga xil saaray asagaan u gudbinaya haddii alla idmo tomorrow wixii ka dambeeyana qof kasta oo Soomaaliyeed oo maqlaayo qofkaas oo meesha teleefanka la soo dhigay hala xiriiro ilaahayna ajir iyo xasanaad badan Allah idin siiyo xaliima laba xaliima dambiyaashiina iyo dambi waalidkiina Allah dhaafo waa idinku batay waana codalka waa idinku sii badiyay adinkoo raali iga qiira iqaaday عفوا ولا شيء لول غير الله كسي قفك قيرة وقادا باي قيرة ودريمينا كل جن إنتاس إنكسي بدن أو سي قرصون آيات الله إن دتك لو استاجو دل يدبت باللو جرمده ووح أنا محي تي أنا جواجي لجسارين هاي قفكو إنتو هاد لكر إنه ولا الكيسو لبعتيسن أو هاد لا وجر dhibanayaasha meeshan looga hadlaayay siyaasad looga ma hadlaynin cidna lagu ma taageera dalkan waxaan soo galiyay galabtay waa dhibanayaasha oo ugu horeeyo walaalkeen Ibrahim Maxamed Barre walaalaha gadaal ka soo galay waa nin Soomaaliyeed oo 57 jir ah 41 sano ayuu wuxuu ku xirnay geed wuu waalan yahay waxa uu joogaa magaalada Muqdisho xitaa xanuun kaleeto inuu haayo Allahu a'lam waa waalan yahay sida walaashii Xaliima ay sheegtay hadda kaleeto oo dadka la sii waalayo geeda la iskaga xiray geedkii la iskaga xiray ayuu ku sii xirnay dhibaatooyin badan walaalayaal ninkaas baraha bulshada ya ayagana awoodooda keenta maahane nacayb ay u qabaan geed kuma xirinay mayada waxa way awoodi markay tahay macnaheennaba wuxuu yahayba in geedka qofka silsilada iyo xariga iyo waxa iyo qofka waa sii waale Xaliima hadlays codsiga aniga aan dirsanayo wuxuu yahay walaalahay Luul iyo Xaliimo ayaa programka ila jira walaalahay kaleeto daawanayo codsiga aan dirsanayo wuxuu yahay qof kasta oo Soomaaliya oo waasha bil asxaanad yaan silsilad lagu xirin awood waa fahmayna in Soomaaliya awood ay ka dhigato qofka in silsilad lagu xiro silsiladu waa bir qofkaanu jirkiisu waa qof way dhaawacaysaa habeenkii uu seexana xitaa wuxuu sameyn karaa silsiladu way dheer tahay qofkan wuxuu sii karaa maskaxdiisa waxay sii kartaa qoortaada ku duubo wuu isku dili karaa ma garatay yacni waxyaabo badan ay sameyn kartaa lugtaa maxay ahayd qofka ka go'i karto walaalayaalo bil asxaanad dadka Soomaaliya joogo qofka intii lala tacaali karo qofka nafti inta ay ku jirto ayaa lala tacaali karaa lala tacaal dadka silsiladaha laga daayo caalamka ma jirto meel qof silsilad lagu xiro oo annaka aan ahayn silsiladu qofkay sii waasha midda kaleeto magaca loo bixino qof hadduu yimaado kaleeto dadka waalan marmaray wax fahmaan markay wax fahmaan waxa way hadii la yiraahdo qofka waa tii waalneed ama waa kii waalnay qofka wuu sii xanuunsanayaa bahda annaga dalka ka sii dilna dadka ha loo dhimriyo maxay ahayd dadka silsilada ha laga daayo
dadka bahdilka ha laga daayo dadka ha loo gurmado waxaan kaleeto ku darsanayaa codsi walaalayaalo hadday islaamnimo jirto hadday jirto dad islaamnimo oo damiir naxa aa leedihiin waxaan jeclaa oo codsi aan dirsanaya walaashay xaliimo iyo luul anoo iyaguna ninkaas miskiinka ee gorilaha u ekaaday in loo qabeeyo oo sidaan laga bedelo oo qol nadiifa la siiyo oo walaalaha muslimaadka muxsinaadka wixii ay ku sadaqaystaan korkiisa ay ka muuqato oo waxaan rajaynaynaa cajalada halkaas ku jirta oo facebooka ku jirta cajalad ka duwan insha allah biidni alkariim in naloo soo diro oo aan aragnaa biidni lillahi alkariim annagoo afur la gaarayo waxaan ku celinaa walaalahay waa ka baxaynaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo ay assalaamu calaykum xaliimo jaamac soo gabagabay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noqoto dadaalkeygu u noqdo midkii maaragtay lagu guulaysto waanan wadaynaa gurmadkaas dadka ummadda oo masaakiinta oo dhibanayaasha maalin walba waxaan jeclahay waqtigeyga inaan wax ka siino hadduu ilaahay yidhaahdo walaalkay ibraahim maxamed muuse insha allahu dhibkaas kuma waari doono walaalahana maqli doono oo ehelka ana waxaan ka codsanaynaa sidaas ay abaayo codsatay ninkaas in loo tago oo maaragtay noloshiisa wax laga bedelo oo asagoo noocan ka bedelan insha allah naloo soo gudbiyaan ilaahay ka rajaynaynaa sidoo kale waxaan rabaa aniguna inaan codsi dirsado meesha ay walaashay ay ka dirsatay ay madaxtooyada u dirsatay anigu waxaan u dirsanayaa haweenka Soomaaliyeed oo xildhibaanada oo Soomaaliya jooga oo ay u horeyso maaragtay gudoomiyaha haweenka Soomaaliyeed Batuulo Jawaahir Baarqab gabdhaha Batuulo Gaballe iyo walaashay Jawaahir iyo walaalaha la midka oo xildhibaanada oo Soomaaliyeed haweenku waa hooyana dadka ayada u dhaqnata waxaan ka codsanaynaa ayaga magaalada jooga inay dadka danyarta ay u meel yeelaan oo ay maaragtay sida ay magaaladu ku sugan tahay xaafad walba inay dad u sameeyaan oo maaragtay dadkaas masaakiinta ka soo warbixiya ayaga dadka indha u ah ayagaana hooyadii magaalada ah marka dadkaas haweenkaas Soomaaliyeed oo sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay hawsha ay hooyanimada iyo xildhibaanka ay ugu yihiin hooyada iyo dhalaanka inay muujiyaan aan jecelnahay taas oo ayagan ka codsanayaa waxaan kaloo aad u codsanayaa dadweynihii galabta daawanaya inay maaragtay si gurmad oo maaragtay daacadnimo ay nala galaan oo ay hawshaas wax nagala qabtaan adinkana sida aad waqtigiina u siiseen maaragtay walaalkay Ibraahim Muuse waa idinkaga mahadcelinayaa walaalay maadsanta walaashay luul adigana insha allah kelmadaha kuugu dambeeya waa ka baxaynaa biidni lillahi alkariim dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtiinba waxaan idin ka codsanayaa inaad gurmadkaas aad maaragtay tixgelisiin ilaahay dartiisna mar walba u taagantihiin inta sharafta leh oo walaaltinimada iyo qiimaha iyo magacayga iyo muuqaalkayga taqaano oo ilaahay subxaanahu qaadiraan walaalo ku nahay oo beejkayga ku jiraan iyo inta aan aqooninba waxaan ka codsanayaa oo beejka abaayo ku jira ayaa beejka abaayo laba xaliimo ku jira waxaan idin ka codsanayaa inaad fideogeena aad maaragtay share garaysaan aad dadka usii gudbisaan ood maxay ahayd aad ilaahay subxaanahu qaadira meel kastaad joogtiinba ka qayb qaadatiin adigoo gurigaaga jooga ajir iyo xasanaad shaqaysan kartaa walaalayaal waxaa ilaahay idinkaba baryayaa ilaahay inuu nala garab qabto asaga iyo wixii la mid ah Ibraahim Maxamed Barre ilaahay waxaan ka baryaynaa inaa maaragtay kilibkii hore laga soo duubay mid ka duwan oo ka maxay ahayd caafimaadkiisa taama iyo maxay ahayd wax qabasho wanaagsan ilaahay inuu na tuso ilaahayna inuu nagu gargaaro waxaan kaloo idin sheegayaa baayadii maxay ahayd ayadana sidoo kale waan u soo gali doonaa iyo duruufo jiroo kale waxaan kaloo aan rabaa inaan abaayaal ilama ogo laakiin aniga hadda si gaar ah u sheecinayo dawladda maxay ahayd dawladdeena iyo baarlamaankeena waxaan ka codsanaynaa saddexdii wado oo Soomaaliya maragaraynka ah oo Madiina iyo isbitaal Banaadir laga galayay dhagxan baa taalo maaragtay waana daruuri saddexdaas wado inaad maaragtay ilaahay dartiis bil ramadaana lagu jiraa aad codsigayga fiirisiin iyo dadka masaakiinta oo dhibaataysan oo xanuunada haysto isbitaaladii maaragtay jidka aad dhigtaan iyo dadkii iyo bajaajkii ay mari waayaan inaad tixgelintayda aad fiirisiin aad maxay ahayd dhagaxaas aad ka qaadiin ilaahay ajar iyo xasanaad badan allah idin siiyo dawladdeena iyo ra'iisul wasaareena iyo madaxweyneena iyo baarlamaanka iyo xildhibaanadeena iyo maxay ahayd hooyooyinka qaranka intaba Batuulo Gabayre ay ku jirto
maxay ahayto qadiija diriye ay ku jiraan inay tixgelinteena ayna fiiriyaan codsiga aan codsanay dadka masaakiinta oo dhibaataysan annaga xoolo ma haysano baarlamaan ma joogno awood aan wax ku kontaroolno ma qabno adinkaa xilkii hayo laakiin waxaan idinka codsanaynaa oo idinka baryaynaa bilfadlillaahi oo ramadaan kariim lagu jiro in aad saddexda wado oo halbowlaha ah oo maxay ahayd isbitaalka banaadir iyo martiini laga geli karay oo dadka aad ka xirtaan aad u furtiin oo maxay ahayd ilaahay dartii ugu furtiin codsi dadka shacabkaan u hadalnaa codka shacabkaan ku hadlaynaa bajaajilaydii ma mari karto dadkii maydka wata ma geli karaan maydkii lama duugi karo walaalayaal mise madaxweyne ra-iisul wasaar baarlamaan hooyooyinka qaranka dhammaan ganacsatada soomaaliyeed in laysku xilqaamo oo saddexdaas waddo oo halbowlaha ah dowladda sharaftale waxaan ka codsanaya inay furaan cod tixgelintayda saacaddan aa idin weydiistana 24 hours ay furaan peace and nabad ay ka dhigaan please waa idin baryaynaa waa daruuri waa hooyo masaakiina meydkeedaa la gelinaya xanuun bay qabaan dhibaatooyin bay qabaan corona meesha yaallo dhibaato badan baa jirto waddanku waa burbursan yahay walaalayaal mawduucayga anoon ka bixin igana raalli ahaada tixgelin noo sameeya anigoo saddexda walaal oo labada gabdhood iyo anigaba aan tixgelintaas idiin soo dirnay codsigaas naga oofiya ilaahay ajar iyo xasanaad allah idin siiya lule waa mahadsan tahay laakiin soomaaliya dowladdeeda codsigeeda horta maasha allah tabaaraka allah adi u dir laakiin waxa waaye soomaaliya hadda dowladda joogta dad waa dad asxaan hadday u samaynayaan oo asxaan ay u samaynayaan waa bil ramadaan jidkina waa xiranay bajaaj inuu jidka mari waayaan aragnay inkastoo mawduuca oysa ku jirinin dowladda arrinkeeda oo kusoo daray waa daruuri uu ahay mawduuc masaakiin aan uga hadlayno oo aanan rabin haddaa idinku gafaabaayo maada gafinin wixii magaciisa ka hadashay oo ayagu dowladda weydiisanaysay laakiin anigatay ya duumo layskuma harmiidiyaa layidhi duumo layskuma harmiidiyo dowladda 3 sanay jirtaa wadooyinka walaashay luul ay sheegtayna way aragtaa marka waxaa la yidhi sadar muuqdaa su'aal ka dhane annaga masaakiintaan u hadlaynaa galabtay marka annaga masaakiinta saddexda wadoo laga gelaayo masaakiintay ka mid tahay fiirsada waa saddexda halbowle oo daruuriga ah oo banaadir iyo madiino ay dadkii isbitaaladii ka geli weysan yihiin waxa way anaga horta masaakiinta galabta u hadlaynay dowladdan oo maya dowladdan yacni codsigeeda waa u dirta war gabadhaas nimanka dowladda hogaamiyow gabadhaas luul barra ah waa taqaanin dowladay taageertaa ani waa taqaanin ani idima taageero mana idin taageeri doono forever marka ani masaakiinta u doodaa laakiin taageerada aan taageerani shakhsiyan ahaan dowladda joogta shakhsi ahaanay idinkaga codsatay laakiin anigu taageero idima taageero mana idin taageeri doono biidni lillahi alkariim sababtay tahay dhibaatada aad dadka u geysateen ayaa og maanta oo gabalkii sii dhacaayana idima taageerayo sababtay tahay 3 sano iyo bar ayaana idin taageerinin marka maadaama aana 3 sano iyo bar idin taageerina maanta oo gabalkiina sii dhacayo June next month ay tahayna ma idin taageeri doono haddaana waalnayn maanta waxa looga hadlayo waa masaakiinta insha allah marka luul way saxan tahay waxay ku saxan tahay dareenkeeda inay muujido waxay ku saxan tahay waxa iyadu ay qabto walaashay inay ka hadasho oo ah dowladda iyadu markaas ay taageersanta ama qofka mowqifkiisa uu urursan yahay inay ka hadasho way saxan tahay haddaa dadnimo jirto oo aad jirtana gabadhaas codsigeeda waa in waa Soomaaliyeed waa muwaadinad waa hooyo waxay ka hadashay dareenkeeda hooyanimada waxa ii dheer qarax 2016 ugu soo dhacay ayaan abtarna u daranahay xanuun aan adinka qabin aniga Soomaaliya u qaba ma fahantay noloshaydiyaan ku waayay saasoo ay tahay waxaan ka codsanayaa cidna uma haysta dhibkii soo gaaray qadarulaahi aan aaminsanahay laakiin waxaan ka codsanayaa in maantay dowladda joogto ay codsigayga ii fiiriso dadka ila midka ah oo dhibaataysan ayaan shacabka Soomaaliyeed u taaganahay shakhsiyan aniga luul ahaan gurigayga iyo ilmahayga wax ii siiyay malihi ma fahantay laakiin xanuun aan dalkayga iyo dadkayga la dareemayo ayaga hadalsinahay adinkoo raalle ah walaalayaal waadna mahadsantihiin adinkoo raalle ah
waa mahadsantihiin walaalayaal insha allah bin alkariim kulligeedhan xilli waxaa la joogaa afuraa la joogaa waa maxay ahaydtay walaashay waxaan u mahad celinayaa xaliimo jaamac oo from sweden ah iyo walaashay luul barre oo maxay ahaydtay from london ah iyo aniga oo maxay ahaydtay from london walaashay asla nahay insha allah haddii ilaah yiraahdo waxaan galabta usoo galnay walaalahayga anoo barnaamijka inala daadihinayay walaalayaal kulligeenba waxaan guryaheena naga keenay oo halkaas aan iskugu imaanay waa xanuunka walaalkeen ibraahim maxamed barre iyo walaalaheena inta dhibaataysan arrintu ma ahayn arrin siyaasadeed ma ahayn arrin dowlad looga hadlaayay ma ahayn arrin cid lagu taageerayay ma ahayn arrin cid lagu mucaaradayay ma ahayn kanaan jeclahayo kanaan nacba waxay ahayd masaakiinta in looga hadlo fronto oo wadaadkaas 41 sano geedka ku xiran walaasheen leylo gabadhii maxay ahayd from qardho oo dhibaatada ahayd runtiina aan ka xumaanay xala markaan social media ku aragnay in la ridiyay hadalkeedii runtii aad ayay noo gubtay oo aad ayaan uga xanuunsanay gabadha masaakiinta ah hadday telefoonkii qaba weyday in erayo aan fiicnayn iyo waxyaabo aan fiicnayn si waa sax sina waa qalad qofka adoo maxay tahay cayda iyo aflagaadada wax aad u qaldan ayay ahaayeen hooyooyinaan nahay gabar Soomaaliyeed ayaan nahay gabar la xumeeyay wayna dhibaysaa Soomaaliya meesha ay joogto iyo cidda ay joogto ha ahaato gabar xanuunka ayadaa dareemaysa leylo waan la dareenay xanuunka waanan ka gubanay waanan la ooynay haddana xala markaan dhagaysanay dad caana oo Soomaaliyeed oo gabadhii aflagaadeeyay runtii waan ka xumaanay aad baan uga xumaanay aad baan u ooynay waxay ahayd waxay qabtaba walaasheen inay qarsato il ayna ka warsugto ilaa iyo inta ay gabadhaasu telefoonka qabanayso sababtoo luulba way la hadashay aniga waa la hadlay waxna social media isticmaalaa ma aanan ka xumaanin sababtoo dad badan inta caawinay waxa laga yaabaa waqti aysan jaanis u lahayn ama ay xilli xun ku jirto inay telefoon ay qaban weyso ma ahan marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofka bini'aadamka ha u daninina mar walba u cudur daara qofkiina dhibaataysan ma fahanti taar u sameeyay xalimaha ku soo waco oo telefoon iga qaban weyso ma ahan ina aniga i diidan tahay waxay tahay jaaniskaas waqtigaas inaadan available ahayn lulay intaan aan programka soo gala 1 hour ka hor ay soo wacdo kaama qabanin because busy ahay waxbaan sameynayay ka bacdi aan mustaqbalka ma garatay waxaa aragnay dada inta wacnay oo lacaga loo diray loo soo aruuriyay inta wacnay ina telefoonkii la xiray mana aanan aflagaadaynin mana rabna xataa inaan aflagaadayno annaga qof miskiin oo dhibaataysan lama aflagaadeeyo gargaarka ummadda Soomaaliyeed dulqaad ayaa loo baahan yahay dulqaadaa loo baahan yahay leyla way dhibaataysan tahay waa gabar Soomaaliyeed rag iyo dumar rag Soomaali annaga dumar haddaan nahay weliba waxa maanta dhibka u geystay maalintay 12 sano jirtay waa nin raga ninkii ragga ahay waayo waxa ilaa maanta geysashada loo geystay waxa ka darnay labadii nin oo kadib aroostay waxay ku soo fureen waa xanuunkii shalay loo geystay daraadeed iyadaa sheegtay masaakiinka oo dhibaysan inaan qaadno lagama yaabno oo aan sidiisa ku tirgalayno war ajar baa kuu socdo war allah ajar baa ka helaysaa war allah wuxuu ku siinayaa maxay tahay war allah akoon agtiisa ka furanaysaa qofkaan markaa daruuf ilaahay dartii aa u qaadato oo ku guursato daruuftii inaad maaragtay oo maqashay inaad ku soo furtid 3 jeer oo 3 nin oo Soomaaliyeed ay soo furan war ma damiryaalayaa waa ragga Soomaaliyeed mase waxay yaqaaniin tan dubanoo sideenoo kale salsaloolkaayo maasha allah unbay rabaan inay wax ku bixsadaan war ilaahay ka cabsada qofkii dhibaataysanna qaata qofkii wanaagsanna qaata ilaahay baa idinka dhaliya dumar baad rag baad tihiin lulwa leyla uma ay baahna keliya waxna ma aysan weydiisan qoys mana aysan weydiisan qabiil waxay weydiisatay ummadda islaamka ay ummadda Soomaaliyeed hadday qabiil rabto qabiilkeeday hoos u wax weydiisan lahayd hadday wax tarayaana leyla ma timaadeen international hadday leyla qabiilkeedu wax tarayaan international ma aysan timaadeen Soomaali ka aqoon rabina inaan barto hadda ma garatay Soomaalinimada igala badan iyo rafaadka qofka uu qabo waxay international u imaatayna waa inaan garab istaagno waana la garab istaagaya insha Allah walaalahayga yaan la caayid yaan la aflagaadaynin yaan dhibaato loo geysanin
walaalayaal gabadhaasna ilaahay subxaana watacaala waxaan u weydiisanaynaa iyadana program ay leedahay ayaa loo samaynaya hadduu ilaahay leeyahay faraqay ku haysataa telefoonkeedii yaa dhibaato intii ku filan faraqay ku haysataa dhibaato intii ku filan faraqay ku haysataa insha allah binilkariim waxaan idinkaga tegaynaa intaas iyo nabadgelyo dhagihiina aana siiseen iyadoo la sooman yahay iyadoo afur la yahay iyadoo wax walba leeyahay anagu dembina kamaanaan hadlayn wax beenana kamaanaan hadlayn cidnana maan la aflagaadaynaynayn bayna islaax wax ilaahay ayaa laga hadlaayay caawimo ayaa laga hadlaayay in la iscaawiyana waa sharci marka walaalayaalo waa waxaan iskugu imaanay waa waxa dadnimadu ay tahay waa waxa dad maxay islaamnimadu ay tahay aniga oo maxay tahay Xalmi Sacdiye ah iyo maxay heetay walaashay Xaliimo Jaamac oo samiday ah iyo walaashay Luul Barre waxaan idin leenahay intaas iyo nabadgelyo dhagiina na siiseen ajir iyo xasanaad Allah idinka siiyo walaalahayga haddii hadal idin dhiman yahay waa kaasa haddii kaleetana waa ka baxaynaa in lillahi alkariim annaga hadalno aniga ima dhimana kulay adiga waxaan dhihi lahayn batir insha Allah waxaan noo ballama inaan saa dadka ugu gargaarno codkayga insha Allah uu meel kasta gaaro ilaahina waxaan ka baryaynaa inuu inta islaamka uu maaragtay ka yeelo kuwa nabadgala dhibaatadan jirta in ilaahay ummadda caalamka oo dhan uu ka saaro koronaha iyo dhibaatadiisa inuu ilaahay ummadda maaragtay ka saaro inuu ilaahay maaragtay hawada noo furo waa aragteen hawadii waa naga xiran tahay caafimaadka dadka qaba inuu ilaahay u siyaadiyo kuwa dhintay inuu ilaahay u naxariisto kuwa maaragtay jirada ka qaado aan ilaahay u baryaynaa ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogto ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu bogooda burcad isku mariyo marka waa salaamintiin walaalahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Xaliimo Jaamac iyo walaashay Luul adinkana aad iyo aad u mahadsantiin inta waqtigiina na siiseen oo qaaliga ah Allah subxaanahu wa ta'ala ajri iyo xasanaad idinka siiyo walaalaha daawada sidoo kaleeto waa insha Allah ballanteena iyo caawinta walaalka miskiinka ah iyo barnaamijyada insha Allah biinil kariim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh calaykum salaam